oo dadka ay dilaan ujeedkeedu ahaa maynugu hadal badan uma istaagin waryaahe anigu war badan uma istaagin waxaan u istaagay dagaal marka laga sheekaynayo waa yar fudud yahay laakiin marka gacmaha la isula tago waa yar adag yahay Soomaa raggii maalintii dibadda halkan aan iska raacnay bishii sanadkii hore ayaa gebigiina haydeen baan filayaa intiina badan Soomaa maalin walba meeshaan miyaan meereysanaynaa mase nimanka waa islaafinaynaa yaa war shaydaankaan waa tigi waaye waan cayrinay waa soo noqdaa waa cayrinay waa soo noqdaa ma islaafinaa war baan idiin sheegayaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa niman gaalaahi u yimaadeen waxay yidhahdeen waa ku rumaynaynaa diinta aad waddana waa qaadanaynaa raggii waxna bari lahaa nugu dar rag buu ku daray oo culimo ah oo inay diin baraan oo ugu daray markay meel la tageen ayay raggii laayeen ujeedkeeduba wuxuu ahaa inay qiyaameeyaan oo dadka ay dilaan ujeedkeedu ahaa ma idinku dhaartaa kuwaan inaysan wax ka dubnayn waxay idin dhahayaan intay idiin yimaadaane waxay idin leeyihiin maye annagu qofna taaban mayno adinku waa fiican tihiin qoladaas shishaa belaysan qoladaasaan u soconnaa hadda waxay ugu maqaalaa inay yidhaahdeen dadka dooxada deggan waa dad fiican laakiin kuwa xagga joogaa shidaysan kuwaasaa inkaara bal eeg waa been meeshay kugu dili lahay inay ku geynayaan waa kuwii yidhi diin ha nala baro ee dadkii bari lahayd asxaabtii laayay kuwaan iyo kuwaas waa isla mid aniga waxaan rabaa fayswanaan galnay oo waa ku noqonnay oo waa ku noqonnay oo waa ku in badan ayaannu ka wada hadalnay dagaalka inaan iska xawilno madaxdii qaranka oo ciidanka weliba way nala joogtaa tayii ciidanka lugtu waa nala joogaa agaasimihii maxaanku idhaahdaa hay-adda sirdoonkana waa nala joogaa waa labadii rukun ee amniba haddii laga hadlayo la cuska lahaa Soomaa fursad baan haysanaa